بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن ونكسن داود يال كنا سودوادا برنامج قارة وهذا دونو تاريخي هجامية كعنكا دلكنا الصومالية جنرال محمد سياد بري برنامج كاسيا وحن وهذا دونا حلقي دولة دي ريتك أي كلا ورجن حكمك دلك الصومالية يحلقي محمد سياد بري وكوجيريو دي دلك نيجيريا isla markaana lagu aasay gobolka Gado gaar ahaan Baardheere anigoo Maxamed Nuur Maxamed Shariifka ayaana barnaamijkaas gaarka ah idin soo jeedin doona كوي لباتنكي أكتوبر كون يسقال بقول لحدن يسقالكي أي عيدمada Soomaaliyeed انقلابين دولدي رayidkeed ee madaxweynaha ka ahaa Cabdirashiid Cali Sharmarke oo 15 October lagu dilay magaalada Laascaanood xilliga uu dilka dhacay dalka waxa ra'iisul wasaare ka ah Maxamed Ibrahim Cigaal Allah u naxariiste Cigaal waxa uu ku sugnaa magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas uga qayb galay shirka qaramada midoobay wuxuuna markii dilka maqlay si degdeg ah ku soo gaaray dalka Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah u naxariiste marka uu dalka ku soo laabtay waxa bilowday sidii loo dooran lahaa madaxweynihii bedeli lahaa Allah u naxariiste Cabdirashiid waxa waqtigaasi laga dooday cidda qabanaysa xilka madaxweynaha waxaana ugu dambeyntii lagu heshiiyay 20 October 1969 in Xaaji Muuse Boqor uu noqdo madaxweynaha bedeli lahaa Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmarke hase ahaatee ma suurta galin habeennimadii 21 October 1969 waxaa talada dalka la wareegay ciidamada qalabka sida ciidamada talada la wareegay lama garanayna cidda hogaaminaysa xilligaasi balse raadi Muqdisho ayaa 1 bisha November 1969 laga baahiyay xubnihii golaha sare kacaanka oo ka koobnaa 25 xubnood 23 bishii tobnaad 1969 ayaa golaha sare kacaanka waxa ay shir ku yeesheen xerada afisyoon ee magaalada Muqdisho shirkaasi oo looga doodayay qofkii noqon lahaa hogaamiyaha kacaanka waxaana Maxamed Siyaad Barre kula tartamay saraakiil 3 ka kooban oo ay ka mid ahaayeen Salaad Gabeere Kadiye Maxamed Ceenaanshe Guuleed iyo Ismaaciil Cali Abubakar waxaana tartanka cod bixinta ku guuleystay Maxamed Siyaad Barre oo loo doortay gudoomiyaha golaha sare kacaanka Maxamed Siyaad Barre ayaa khudbadii ugu horeysay jeediyay 23 October 1969 taasi oo uga hadlayay waxa ay doonayaan inay qabtaan wuxuuna sheegay inay doonayaan in dalka sharci nidaam ay ku soo celiyaan waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarayay ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa abwaan Cali Sugle ayaa 22 October 1969 waa markii uu dalka qabsaday Siyaad Barre 22 October maalin kadib uu sameeyay hees halku dhigeedu u ahaa xalay saqdii dhexe xil kastii noo dhaqaaqday hobalada waa bari ayaan heestaasi qaadayay
sidoo kale abwaan saciid maxamed harawo ayaa isaguna sameeyey heesta halkudhigeedu ahaa tooradda tan barakaysan. hobolada waaberi ayaa codkooda ku qaadayey. madaxweyne maxamed siyaad bare ayaa garab iyo gaashaanba ka dhigtay fanaaniinta oo fariimaha ku gudbinayay hab sugaaneed. xilligaasi wixii ka dambeeyey waxa uu ka shakiyey in xukunka ay kula gorgortamaan rag uu ka mid yahay salaad gabeere dabagal iyo daandaansi. kadib luulyo 3 1972 abbaarihii 8 aroornimo ayaa xukun toogashaha lagu fuliyey salaad gabeere kadiye, jenaraal maxamed ceenaasho guuleed iyo korneel cabduqaadir dheel cabdulle oo lagu eedeeyey in markaasi ay la loolamayeen maxamed siyaad bare. salaad qorsheel waa ka horreeyay markuu mucaamiraad dhistay oo isku dhistay revolutiono kale inuu sameeyo. wallahi waa ka horreeyay waana ogaanaa waa ka xidmilaa waana ogaa waa ay ka horreysay qorsheel qabashadii waa ka horreysay markuu durbaan iyo balo iyo hebel iyo kan iyo kan iyo keer iyo orod iyo muxuu ahaa xidigle hebel iyo kaftan hebel iyo mijir hebel iyo intuu urudooda war see wax u wadaa daliil ilaahay nagama dhigina waa u yeero waxa ay maqal sala waa beenta wax wada wallahi hada meel ku gaarin mabda wax ku jira meel ku gaarin ka dhaxbax dadka waxa aad ku wada kada oo sarra firsan oo isdilahaya marabno Soomaali islaynaysa marabno waxaan revolutionaha hadda adigu mabda kala wadatay annagu kaadaan wadan beentana way ma dhaqaajin kartay ee kada waxaan rabnaa oo sarradan inay isku mid yihiin inay isku walaal yihiin inay gartaan cadawgoodu meeshuu jiro inay gartaan inay ummad inay iyagu siiyeen sida aanu Soomaaliya ka doonayno kada waxa qaybinayso muamalaad hoosta ku wada ku socon maayo alla kugu liibaanay maayo ka jooji kana shishayna kana sokayna kana hoosayna been baa sheegaysa kana sarayna ka joog ma kana aan qarin maxaa waay waxaan diidayay nin aanu dagaal soo wada galay inaan khiyaanan diiday haddaan baan u sheegay ilaaha baa ka maraga hadday alla ka baqayaan hadda sheeg ma aan leeyahay kuwo mooska jireen wixii u sheegi jiray hadday alla ka baqayaan qulubtoodana u sheegay saaxiibada runtana u sheegay aniga ii sheegay waa leeyahay inta xataa qorshe aan qabo muamiraadkooda ku jiro revolution contre revolution kan soo bob garandeedsa waa weyn start waa fakaro waxaan waninka kanu marka wuxuu doonay soo weynaan ma weynaantii baan siinayna rag badan saaxiibada waxay yiraahdeen war waa waanta hadduu san hadeer ba khayr lahayn oo 10 beriyada revolution aan ka joogin oo muamiraad iyo qurun galay maxaa u sii badanaysa waa sii balaaranaya ha sii balaartay biluku ku kalsoonay general iyo minister iyo wixii war qaado defense oo dhan madax u noqo soco waa u yaro waxa ay hadii bahay ku anfici waa kitaab idile hadii kale soo walba unsaas wala wacdi eedownay ma haddaad darajo doonayso waaka haddaad oo xarago iyo gardarajo military haddaad doonayso waaka mid siyaasi haddaad doonayso waaka xoolo haddaad doonayso waaka haddaad wax kale doonayso waaka fanfan iyo qurunkii aad taqinay suuq haddaad la marayso waaka ilaahay baan kugu dhaafshay Soomaali meel xun ugu gaaban ka jiro waana kugu ilaalinay saas isagoo saas oo aan ku ognahay waxaan u dhibnay minister defense generale iyo minister waxa uu ka dhigay kama aanan qarin waa u sheeg waxaan warjoog taasad ku socotaa intuu watay baan tuma warkajo daalimintiisana kulli waa wada kan qaarna ay daalimintii la galeen qaarna ay banaanka iska joogaan laakiin hadday doonaan ay ka noqon karaan wali nafsi fiican bay haystaan waa ka noqon salaad وحيسة waxaan marag weydiisanayaa qurun inay ahaayeen raggii isla hadli jiray yaan marag weydiisanaya oo qabyaalad ku fadhiday oo isticmaar ku fadhiday gaalan wax la qabsado oo muxuu ahaa qayb ku fadhiday oo iimaan la'aan shakhsiga ku fadhiday oo iimaan la'aan dad khaas ku fadhiday qurunkiisii marag waxaan haystaa ilaahay iyo kuwii la joogay laakiin 8 iyo 10 bilood ayaan isagoo meeyda tunkuwad meeyda isagoo nin حتى شعب هنقطة أنه ورسالات بلاي وضع
كل قلنا أنا أقوله صلاة جعنت عن لا يهي كتابا ما يهي جعنت شال يالكين اللي كتابا ما يهي تيسي إنه يسكت لما مد أسلي يهي إنه يسكت لما محاو عي وحو إلى الصوق عليه شهاد غرمون بإلى الصوق عليه مركا ما أهان دونتو إن أنا وحن حوق ليه أنا مسكوك جينين إن كعلي جدك هدوس الديو سو سكوده هو الرب إله كبرك هو أنا مسؤول عنه صلاة كابوا كو maxay ahayd marka siyaasadoodu iyo muraadkoodu meeshii u socdeen waxba aan ka sheegi maayo ama sanantar baa fasiray waa maqasheen bay la tahay ama hada koor baa la fasiray waa macnaheedu inaan ku rumayno laakiin kulliiba mabaadiida maanta aan ku soconno ma aynan ahayn kulliiba Soomaali mid ha ahaato ma aynan ahayn kulliiba Soomaali xaq sinaata ma aynan ahayn kulliiba Soomaali cadaalad xaq wax lagu qaybsho ma aynan ahayn kulliiba Soomaali hore u kacdo ha ifato oo adduunka kaleeto هلا ترتنتو أو مخوها دولتها أدونك إنتي لسنا تضب أهم هي الدولة أهم با هل كشرف كذا كل ورطة ما عنا نحين كل إنت صادم كل إذا ما عنا تاسنا هم تقول إنت كشيء جوية مركب حلوس السعودي إنتي إنه مركب مسؤول كذلك إنه حنبارني إنتي إنه نريدك وحنو وفلينا أما كور كعينا وضحى مركب ما عيد كرتابنا ما يدعي كرتابنا إننا المعاملات كلها ورنا مركزنا أي نولدنا ضن مسكينة أو نليه إننا قطعنا أما ضن قبيلات قرمون أو نقول منها الصومال إننا قطعنا أما إنه يقول هذا إنه استعمار أو كرال لكنه نو ما دعي كرتاب وعوية مركز شوفته إنه وعيننا هاي ريفولوشنال waxayna u fiican tahay runta in la isku sheego iyo ku fiican tahay revolutionaha kanu waa aynu xusuusanahay ma aha mid aynu cayaar ku galay mana mooganin revolutionaha kanu in uu wax la oran jiray constitution lagu sheegi jiray ama dastuur lagu sheegi jiray oo dabada u gadiyay ma ilowsana baarlamaan dhan oo dhisan inuu dabada u gadiyay ma ilowsana madaxda dalka inuu xurimo ilowsana ما إلو سنة إنه توق بدن قبطي أو حوار رأي وبابين وأي حبس لوجب بلحان ما إلو سنة ريفولوشنها كانوا ما إلو سنة استعمار كل هو ويعني لب الرأي مو إلو سنة إد بدن إنه قبل ما ده كرتو ريفولوشنها إنه أقول عنه عيارين وصلوية ما يده مركا وحوي هذان سوكو ما يده كرتو قف يلا بقى يسد يعفر يطمن يبقول يكونتون يشم بقول يوعد من كمال منا أو أبيين دولة محمد سياد بري أي لجوء معنى يكون يسقال بقول تضبطني لبدي قريست أفك الصومالية أو هيد مركي وهرسي إلا قرا أفك الصومالية وحنا محمد سياد بري كهير قليي لما قبل الدلكا وحنا آمن سنة إن دتك أي أفكوده هوي وقعي البحي كران لنك وحبرشدا كون يسقال بقول تضبطني شنتي مركي وكل واقع محمد سياد بري xeerka qoyska ayaa waxa ka hor yimid culimada diin Soomaaliyeed 10 kamid ah culimada ayaa la dilay qaar waa la xiray halka kuwa kalena ay dalka markaas isaga carreen 23 Janaayo 1975 waxa isla xilligaasi isku dhacay laba diyaaradood oo ay dawladda Soomaaliya lahayd dalka Soomaaliya ayaa waxa dawladda kacaanka ay ka hirgelisay mashaariic dadka Soomaaliyeed wax u tarayay waxaana shaqo abuur loo sameeyay shacabka Soomaaliyeed waxa la hirgeliyay warshado iyadoo ardayda ay heleen waxbarasho lacag la'aan ah sida dugsiga hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed oo lacag la'aan ah oo aan laga helin caalamka haddana waa markaan leeyahay dal taajir ah iyo dad faqiir ah isku dul nool dadku faqiir weeye ruweeye laakiin dalku taajir weeye ilaahay wax walba waa dhigay bad buu dhigay beer buu dhigay xoolo ka badiyay hawo fiican buu siiyay kulligeen shaarar baynu qabna 12 bilo shaararkaas qabayna adduunka meel badan kama dhacdo taas dhowr nooc oo labis waa in la isku bedela oo dhaxanta mid la isaga celiyo oo mid qorraxda la isaga celiyo oo mid dabayshiya balaayo waaweyn la isaga celiyo naga aad baa ilaahay noogu roon laakiin waxaad moodaa ama asal aqoon darro haynoo geyso ama isticmaarba hayna aaminsiiyo inayna waxba qabsan iyaga barino hayna aaminsiiyo
haddana waxaad moodaa inaynu faqiirnimadii kula nool lahay sababihii la imaanhayeyna inaynaan dareemaynin sidaynu isaga caabii lahayn waxaad moodaa habkii ama tabtii aynu kaga bixi lahayn dhibaatada noocyada kala gedisan leh oo ama bini aadamku uu dalkeenna u geysanayo dadkeenna ama dabeecadduba haddaadan la dagaalamin way kula dagaalamaysaa awooddii alla ku siiyey aadan uga hortegin oo aadan wax ugu qabsanin inay ku hayso shacbigeenna dhibaato badan haddana waa dalkaa taajirka ah saanu sheegahayo dadkeennuse ma garan tajaaradaas ilaahay siiyey oo dadnimo oo dad fiican wey dadkeennu dad xun maaha iyo qaniimadaas ilaahay dalkooda ugu beeray nooc kastaba ha noqotay inay ka faa'iidaysan lahayiin faa'iida darradaasna ay ka imaanayso dariiqad aan habboonayn u fakerta ama ku shaqaysa weligoodna uu isticmaar lug ku leeyahay ajnabi uslug ku leeyahay intay iyagu taladooda iyo tabartooda iyo dantooda iyo dalkooda iyo naftooda iyo ilaahad inta aaminaan ay wax qabsan lahaayeen waxaad moodaa aad inay ugu janjeeraan cid kale inay wax ka sugaanin 21 Oktoobar markii la gaaray ayaa tarbuunka waxaa lagu soo bandhigi jiray fantasiyo awoodda ciidamada dalkeena gaadiidka dagaalka iyo awoodda ururada bulshada xukuumadda kacaanka ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre ayaa waxay go'aansatay in dagaal ay la gasho dalka Itoobiya dagaalkaasi oo dhacay 1977 waxay ciidamada Soomaaliya ay markii hore gaareen guulo la taaban karo oo waxay gudaha u galeen dalka Itoobiya iyadoo kooxaha fanka ee dalka ka jirana ay suugaanta la daba galeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed 23 bishii July 1977 ayaa dagaalka lagu dhuftay dhanka koonfureed ee ahaa Goday Qarbi Dahare dhagax buur wuxuuna Generaal Maxamed Nuur Galaal sheegay in isla maalintiiba la qabtay Qarbi Dahare Maxamed Siyaad Barre hogaamiyihii kacaanka dawladdiisa intay jirtay waxa uu dagaal la galay jabhado ka soo horjeeday iyadoo jabhaddii ugu dambeysay SNM uu dagaal kula galay magaalada Hargeysa iyadoo shacabka Hargeysa deganna ay ku eedeeyeen Maxamed Siyaad Barre inuu diyaarado ku weeraray una xasuuq u geystay si kastaba ahaatee 21 sano kadib xukunkii militariga Maxamed Siyaad Barre ayaa waxaa lagu qasbay inuu ka baxo magaala madaxda dalka Soomaaliya ee Muqdisho 1991 isagoo markaasi ugu dambeyntii gaaray dalka Nigeria Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste asagoo 80 jir ah ayuu waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria Maxamed Siyaad Barre ayaa Oktoobar 26 sanadkii 1995 waxa uu ku geeriyooday magaalada Lagos ee dalka Nigeria waxaana ugu dambeyntii lagu aasay dalkiisa hooyo gaar ahaan magaalada Garbaharey ee gobolka Gado intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay Jaalle Maxamed Siyaad Barre tan markii xukunka uu qabtay ilaa intii uu ka geeriyoonayay Maxamed Nuur Maxamed Shariifka ayaan halkan idinkaga soo jeedinayay dib intaanu kulmi doono sida ay nabadgelyo